magaalada Taleex ayaa maanta lagu furay xafiis cusub oo ku yeelan doona ururka kulmiye ee Soomaaliland. ururka haweenka magaalada Taleex ayaa soo qaban qaabshay kulanka xafiiska lagu furay ururka. xafiiska waxaa xariga ka jaray xogayaha gobolka Xaysuma Cabdirasaaq Jaamac Aadan, wuxuuna sheegay in hadda laga bilaabo xafiisku uu furan yahay ururka. halkan waxaan kusoo dhaweynaynaa xusbiga kulmiye ee gobolka Xaysuma ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. maanta ay tahay maalin wanaagsan. gudoomiyaha garabka haweenka magaalada Taleex Samson Baashe ayaa goobta ka soo jeedisay hadallo kooban iyadoo u mahadcelisay madaxweynaha Soomaaliland iyo guud ahaanba ururka kulmiye. halkan waxaan kusoo dhaweynaynaa ururka kulmiye anagoo ah garabka haweenka ee gobolka Xaysimo magaalada madaxiisa Taleex. waxaan nahay ururka haweenka ee gobolka Xaysimo ee kulmiye anagoo isu taagnay inaanu ka qayb qaadano midnimada kulmiye iyo muqaddiska kulmiye iyo hawsha uu xusbiga kulmiye u taagan yahay inaanu garabka hayno anagoo ah iyo qaranka Soomaaliland. waxaan halka ku salaamayaa gudoomiyaha ururka kulmiye Muuse Biixi Yoonis. waxaan ku xijinayaa madaxweynaha hadda talada haya ahna u taagan xilka musharaxnimada ee ururka kulmiye Cabdiraxmaan Saylici mudane Cabdiraxmaan Saylici. waxaan u hambalyeeynayaa madaxweynaha hadda xilka haya ee Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilaanyo. qaar ka mid ah dadka ka soo qayb galay ayaa dhankooda soo dhaweeyay xafiiska cusub oo uu ku yeelan doono kulmiye magaalada Taleex. waxaan ku soo dhaweynayaa xusbiga kulmiye meel kasta xafiis ku leeyahay anigoo ah dhalinyarada isboortiga gobolka Xaysimo gaar ahaan degmada Taleex. aad iyo aad baan ugu hambalyeeyay xafladatan waa xaflad qaali ah runtii. waxaan tahniyad uga diranaa halkan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilaanyo. waxaan kaloo hambalyeeynaa dhammaan xisbiga kulmiye meel kasta oo xafiis ku leeyahay. aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa haddaan dhanka kale waxaan ku boorin lahaa guud ahaan dhalinyarada xisbiga kulmiye ee deegaanka Taleex gobolka Sool. waxaan taageersanahay xisbiga kulmiye waxaan taageersanahay Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan u hambalyeeynaa madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo. waxaan kaloo maartay u hambalyeeynaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Yoonis. waan taageersanahay xisbiga kulmiye aad baan ugu faraxsanahay. waxaan ka rajeeyaa xafiiska cusub ee kulmiye ku yeelan doona magaalada Taleex ayaa xafiiskii ugu horeeyay oo laga furo magaalada Taleex. Cabdiqani Maxamed Axmed Cabdiqani fantastic Kalsan TV magaalada Taleex.